abuurkan oo ka kooban galey cad iyo digir gaduud daaweysan tayo dhammaystiran leh ayay wasaaradda beeraha Soomaaliya oo kaashanaysa shirkadda ZZ iyo mashruuca Geel waxay ku wareejisay maamulka degmada Awdheegle si ay uga faa'iideystaan beeraleyda deegaanka oo uu saameyn weyn ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle. maamulaha shirkadda abuurka ee ZZ Dr. Khalid Cumar Cali ayaa ugu horreyn sharaxay faa'iidada abuurkan iyo qaabka loo beeran karo. waxaa nasiib wanaag ah in alaabta maanta aan halkan sambalskiisa lagu doonsiin doono gudoomiyaha iyo salaadiinta deegaanka in ay maanta taala Awdheegle. waxaan rabnaa wax walbo si wadajir ah markii lagu wada qabto guusheeda waa la gaari karaa. waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo alaabta hadda la siiyo markay saraacadkan u soo go'o haddana inaan u raadino market. gudoomiyaha degmada Awdheegle Cabdullaahi Cismaan Abukar iyo wasiir ku-xigeenka beeraha ee Koonfur Galbeed Xasan Sayid Cali Cabdow ayaa si wadajir ah uga mahadceliyay abuurka lagu wareejiyay oo ay sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan beeraleyda oo uu saameyn weyn ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle. maanta waxaa wasaaradda ka soo jawaabtay marka qayb ka mid ah abuurkii oo beerihii oo loogu talagalay inay ayaga maanta na soo gaarsiiyaan oo maanta aan ka soo qayb galo. waxaa kaloo ka rabnaa wasiirka degmada Awdheegle dhibaatada ka taagan dhanka beeraha way fara badan tahay, ma ahan mid la soo koobi karo dhan waliba. fatahaadan maana abuurkii kaliya ma ahan, abuurkan waa dadka in ay beerahooda ku beertaan. maana meeshaas dhibaatada ka jirto waa dhibaato koobmaysa ma ahan. waxaan goobjoog u soo haynaa maan aragnay dad badan oo seasonkii xataa seasonahan uu fiican yahay ama xilli roobaadkii xilliga la rabo u yimid haddana beertii abuurkii dartiisa ninkaa inay uga baaqatay isagoo markaa aanan u fiirsanin isticmaalka abuurka markaa uu isticmaalayo inuu yahay abuur uu soo hubiyey ama uu soo maray meel kale soo iskangays aan jirin isaga dhiiraday. wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda abuurka uu leeyahay beeraleyda Soomaaliyeed ee wajahaya xaalado adag oo isugu jira fatahaado, dhibaatada anyaxa iyo saameynta cudurka safmarka ah ee COVID-19. abuurkuna runtii ahmiyad aad iyo aad u weyn buu ku leeyahay horumarinta beeraha. marka waxaan rajaynaynaa in iyadoo la iswada kaashanayo wasaaradda dowladda federaalka, wasaaradda Koonfur Galbeed ee beeraha, maamulka degmada iyo degmooyinka kaleba in laga wada shaqeeyo sidii loo najixin lahaa beeraleydu inay baahiyahooda in la daboolo oo dhibaatooyinkan dabiiciga hadda socdo fatahaadu ka mid tahay ay ka mid yihiin ayaxa isagoo hadda musiibo weyn oo soo korortay ah iyo dee hadda tan weyn oo socoto oo COVID-19 oo iyaduna wax soo saarka dalka runtii saameyn aad u xun ku yeelatay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.